السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قلبي جعل ولالك محمد مينو ومر والبني سوق بيو حول بشر سوشيال ميديا كدعة فلا هذا نوع عصب تاعي سبسكرايب صار كمبلل كان فرو مرة بساعد ولا ساعات حول بوانا أني سوق بينو ما أنت سوشيال ميديا ما حكوا سكر ده فإلا داو وحول بسوشيال ميديا كدعة ين سوق بيدونا بل داو لكن ما أنت نو سكر ده dahay arna rabana ku sheego ee isdiji in wax jiraan xogaa iska daran markaas kadib waxa isla joognay adoogay isla joognay ama aabahay qof bas u yaqaan isla fadhinay oo isla markaas yaani TV-ga maaragtay akhbaar kala soconay wuxuu i weydiiyay kullu joogo walaal baba ila joogan dhahay markaas wuxuu dhahay okay arna rabana ku sheego markii baba uu sheegay sidna si degnaan uu sheeg yuunxin yu walwalin macna okay aku dhahay dan uu ii sheegay wuxuu dhahay asada la dilay waa isku naxay yani dan si kala noqday hatta yani waxa isaga hadal uu celi waa kaswaay أنا أبغى حي مركضه سون خون كراني ديسك ده أنا جو أشياء بن شب هذا مركبو فهم وجود درامي وحلا أموسنا هاي مركز ولا محكو داعي هم مرة شب ده يعني محلا أموسنا تاع مركز أكو ده بابا إزدي بحرب أنا أكو شيء مركز ولا إيش سو أكثر استوى ماذا مركز أحكو ده أسد على الدليل ما هدين شب إن الإكسود دادته مركز أبو شيء أبو إزدجي يعني حاجة اللي نراك مادة أو شيء صبر إزدجي عمله ده إسلام مركي أنا صاص للجوجو وحد بعض هذا بشير أو صنع خلال كي ترفق يصدره هو ده هاي أرمهان من الأوان وليها دابع وايل soo sheegay sidaadan koodor dhimasho soo sheegay dad wuxuu dhaay daabac waay xogaa markaas rajiyar aan gashay aaban u sheegay waxa dhahay yani daabac waayl inuu ma dhimanin markaas xogaa aaban uu isdeeyo qaboway markaas hooyo way maqashabo banaanka jirtay gabdhaha u sheegeen kadib hooyo maada xaafada oo walwalsan oo si kale oo iska oonayso hooyo sabran dhahay yani aad wala soo sheegay inuu leeyahay soo sheegay shida la soo hadlay wax saasa ku dhahay inii maalintaas yani marabin inaa ka sheekano xasuusan dhamaan familkada dhibaysa maalintaas ana xasuusano laakiin waxa la muraana waxa dhacday noqoto taariikhda ay gasho in markasto oo xilligaas la gaaro ana xasuusnaatida wanaagsan tahay haday tahay dhibaato iyo haday tahay dheefba asad markii uu xogaa yar soo naaxay oo isbitaalka keenay kadib xogaa yar markuu soo roonaaday dhiig ugu shubay kadib adoogay halaygu waco aab halaygu waco ana hadla wax saas uu dalbada la dhahay laakiin aniga walaasha ay sheegtay meesha joogtay asma ala kulli xaal runtii hadda ana iska hadlo laakiin qalbi gudaha ka xanuunsan waa wax walba dhacay haday khayrta haday sharta wax walba dhaco waa wax ilaahay qadartiisa marka waxa muhiim ah inaad ku qanacsan tahay wax walba kugu dhaco markaas daraadid alxamdulillah asad hada ma ahan sidii hore aad waa qof maaragtay ma sha Allah oo aad wanaagsan oo nin kartidiis iyo maaragtay geesnimadiis ku joogo magaalada oo maanta niyadiisa ay jabsaneen rajo wuu leeyahay insha Allah rajadiisana ilaahan ka sugeena insha Allah asad mar walba waxa ku sheekaysan jirnay Skype ama Facebook video call mar qaar koola caadi xaaladiis meesha kala socon jiray Abdullah intuu jooga Abdullah wuxuu u matalay booska aab iyo hooyo waalidiinta ka soo waalidkiisa labaad isaga Abdullah waa inaad booska aab iyo hooyo imaam marad kursi mudada xanaanadooda iyo xoog booskaas isaga u matalay isaan ajir xasanaad la ka siiyo inkastoo oo maaragtay waajib ay ku tahay iyo hawlaalkiisa sidoo kale familka xataa ay naftirkooda yani dadaalkooda ma yareenin hiili hoo isaga garab taagnaan xilligaas ilaa iyo hadda aad iyo aad maaragtaas ugu faraxsanahay yani inay gutaan waajibkooda familnimo waan rajeynaa sida hadda ay yihiin si ka darnaysi ahaan doonaan asad markaas wuxuu jeclaan jiray inuu familka la hadlo video call hadda noqoto inay live isku arkaan anigana waxa isaga abaalmarin ugu dhigay si kadisna ugu naado waan imaaday maalintaas la hadan waa jooga marka insha Allah markastan waa saan u garab taagnaana waa la joogi doonaa